mudane maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka gudoomay safiirka dawladda Ruushka u fadhin doona Soomaaliya mudane Mikhail Kolofanov. madaxweynaha iyo safiirka ayaa xarunta madaxtooyada ku qaatay kulan ay uga wada hadleen xiriirka labada dal iyo sidii loo sii xoojin lahaa. agaasimo ku-xigeenka warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta ee madaxtooyada qaranka mudane Cabdirashiid Maxamed Xaashi ayaa sheegay in safiirku uu madaxweynaha la wadaagay fariin uu ka siday madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta waraaqaha aqoonsiga danjiranimo ka gudoomay safiirka dalka Ruushka u fadhiyi doona jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Mikhail Kolofanov. danjiraha markii waraaqaha aqoonsiga laga gudoomay kadib waxay madaxweynaha ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal kaas oo ku dhisan iskaashi iyo waxwada qabsi. danjire Mikhail waxa uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u soo gudbiyay fariin uu ka sido madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. fariintaas oo ku aadan sidii loo xoojin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal u dhaxeeya, gaar ahaan dhinacyada bini'aadanimada, isdhexgalka dhaqaale ee labada dal u dhaxeeya iyo sidoo kale sidii tababaro ay u heli lahaayeen shaqaalaha rayidka ah iyo laamaha ammaanka. mudane Cabdirashiid Maxamed Xaashi agaasimo ku-xigeenka warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta ee madaxtooyada qaranka ayaa dhinaca kala sheegay in dawladda Ruushku ay muujisay sida ay lama taabtaan u tahay madax bannaanida iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. danjiraha oo ku hadlayay afka madaxweynihiisa ayaa midnimada iyo madax bannaanida dalka Soomaaliya ku tilmaamay inay tahay mid muqadas ah. sidoo kale danjiruhu wuxuu sheegay in jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ay ku garab istaagi doonaan wixii ay uga baahato golaha ammaanka ee qaramada midoobay. ugu dambeyntiina danjiraha Ruushku waxa uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo gaarsiiyay martiqaad uu madaxweynuhu kaga qayb gali doono shirka Afrika ee ku qabsoomi doona Sochi sanadkan dabayaaqadiisa. dawladda Ruushka oo qayb ka ahayd midowgii Sofiyeeti waxay xiriir taariikhi ah la lahayd Soomaaliya, waxaana ay door ku lahayd dhismaha ciidamada militariga Soomaaliya. xilligan oo Soomaaliya ay sameynayso horumar la taaban karo, labada dawladood waxay dib u xoojinayaan iskaashigooda la xiriira dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo qodobo kale oo ka turjumaya danaha labada dawladood. Muxidiin Macalin Cabdulla, warbaahinta qaranka, madaxtooyada Soomaaliya.